siday noqon ilaa ogi sanadka 2022 waxaa la saadaalinayaa inuu noqon doono sanad isbedel oo bulshada caalamka wada gaadha barnaamijkeenana waxaanu ku soo qaadanaynaa dhowr isbedel oo dunida si weyn looga dareemi doono sanadka aynu soo xusnay haddaba tiro badan oo bulshada caalamka ka mid ah ayaa isweydiinaya waxa uu dhab ahaan yahay sanadka 2022 maxaa yeelay sanadka 2022 waxa uu calaamad u yahay sanad horumar tiknoolajiyadeed iyo mid cilmi oo ballaaran ay suurageli doonaan sanadka oo sidoo kale noqon doona xudunta isbedelka taariikhdii hore iyo soo socota iyo sidoo kale tiknoolajiyadii hore iyo ta cusub ee soo bixi doonta waa sanadka la rajaynayo isbedelo gundheer inay dhacaan taas oo aan dhulka ku koobnaan doonin laakiin sidoo kalena hawada sare ay qaybteeda ku leedahay sidaasina waa qaabka uu noqonayo caalamku sanadka 2022 waana sanadka la wada sugayo inay dhici doonaan arrimahan soo socda sanadka 2022 waxa uu suuragal noqonaysa qof kasta oo dunida ku nool inuu haysto telefoon kuwa casriga ah waana telefoonka qaybta weyn ku yeelanaya xoojinta garashada iyo shaqada fulinta maskaxdeena telefoonada casriga ee mustaqbalkuna waxay ka samaysnaan doonaan quraarad dhalaalaysa oo qalalan oo aan qoyaan kuba qaban doonin kaasoo ah shay si fudud jeebka loogu qaadan doono waxaana uu si weyn uga horumarsanaan doona telefoonada casriga ah ee aynu maanta haysanno dhacdada labaad waa midda laga sugayo inay ka dhacdo samada sare taasoo isbedel taariikhi ah ku samayn doonta hawada sare sida uu ku adkaystanayo Mr. Larry Morgan oo ah khabiir dhanka xidigiska macallinka ka ah jaamacadda Calvin ee gobolka Michigan ee dalka Mareykanka waana caalamka qaabilsan xarunta xidigiska guud ee IH Point warbixinta jaamacaddiisa ka soo baxday waxaa lagu sheegay in sanadka 2022 ay hawada sare ka dhici doonto dhacdo bedeli doonta guud ahaan caalamka iyadoo xidigaha wada socda ee Soomaalidu u taqaano ururtu ay isu soo dhawaan doonaan ilaa ay iswada taabtaan oo sameeyaan qarax iftiin oo ballaaran oo aanay weligeedba la kulmin samada sare dhacdada saddexaad ee sanadka 2022 la sii saadaaliyay laguna guda jiro hirgelinteeda iyo ka dhabaynteedu waa dhismaha magaalooyin waaweyn oo saaxiib la deegaanka magaalooyin badan oo kuwa ka mid ahna waxaa dhismahooda lagu hayaa xilligan gacanta sanadka 2022 tirada dadweynaha caalamku waxay madaxa la geli doontaa ilaa 8 bilyan oo ruux kuwaasoo 1 bilyan iyo bar ka mid ah ay noqon doonaan dadka wadanka Shiinaha oo 250 milyan oo ka sii mad ah Shiinuhuna ay deganaan doonaan magaalooyinka cusub waana mashaariic socota oo xilligan ay Shiinuhu si aad u dedejinayaan si loo waafajiyo dhamaystirkooda sanadka 2022 waxaana laga sii taxadiray baahida badan ee dhanka tamarta ee ay magaalooyinkaasi u baahnaan doonaan taadirteed waxaa dhinac socda horumarin lagu sameynayo tamarta cadceedda laga dhaliyo si loo daboolo baahi kasta oo dhanka tamarta oo ay magaalooyinka cusub la soo bixi doonaan tamarta cadceeddu kuma koobnaan doonto mid loo isticmaalo adeegyada xilligan loo isticmaalo oo kaliya laakiin farsamadeeda waxaa la gaarsiin doonaa in qayb ka mid ah ay ka shaqaysiiso adeegyada isgaarsiinta iyo gaadiidka yaryar qaarkii sanadka 2022 waxaa loo qorsheeyay inuu noqdo sanad uu bilaabanayo kacaan cusub oo dhanka caafimaadka iyadoo mashaariic badan oo dhanka daaweynta oo aynu xilligan rajaynaynaa ay noqon doonaan kuwa xaqiiqdooda la soo taabto oo qabsooma waana culun caafimaad oo qaabilsan arrimaha daaweynta iyo ka hortagaba sida ay cadeynayaan khubarada shirkadda MAP sanadka aynu soo sheegnay waxaa suuragal noqon doonta in xanuun kasta oo aadamaha asiba